الله u naxariistay waxa magaalada Kismaayo lagu aasay Ibrahim Iimaan Cabdi oo ahaa ganacsade ka tirsanaa rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland. Aaska marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geele Maxamed Aadan, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland Cali Carays Xasan, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta Jubbaland Cabdinuur Ibrahim Xuseen, gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Kismaayo. Aaska kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay aaska, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa halka uu taaganahay qabuurahan u joognaa inaan u tacsiyeyno gurigiisina u galbino walaalkeen Shariif Ibrahim Iimaan oo ka mid ahaa odayaashii ganacsatadii waxgaradkii nabadoonnadii ummadda reer Jubbaland. waxaan u tacsiyeynaynaa isaga ummadda reer Jubbaland ilmihiisii anoo ku hadlaya magaca dawladda Jubbaland, magaca madaxweynaha, madaxa golaha baarlamaanka. waxaan halkan tacsiye tiiraanyada ugu dirayaa dhammaan ummaddii reer Jubbaland ee uu ka baxay walaalkeen Shariif Ibrahim Iimaan, gaar ahaan awlaadiisii iyo eeladii qaaska ahayd. waxaan leeyahay sawir Allah idin siiyo. ummadda reer Jubbaland waxaan leeyahay sabar Allah idin siiyo. Ibrahim Iimaan Cabdi Ilaahay ha u naxariisto. runtii waa geeri aad iyo aad u xanuun badan qof kasta oo garanayay aqoon u leena taabanayso. runtii waxaan leeyahay walaalkeen Allah u naxariisto, samir iimaan Allah naga wada siiyo, gadaashin Ilaahay nama fidnayo. dhammaan waxaan u tacsiyeynayaa Jubbaland, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Jubbaland, gaar ahaan qoyskii iyo eheladii ayaan u tacsiyeynayaa hadduu Ilaahay idmo. waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu qalbiga noo qaboojiyo dhammaanta iyaga. runtii wuxuu ahaa nin khayr badan, wuxuu ahaa nin reer Jubbaland ah, ku soo dhashay, ku barbaaray, ku waxbartay, ka shaqaynayay, aadna dadka u maslaxada jecel u wanaagga jecel buu ahaa. runtii waxaan marqaati ka nahay nin ahlu khayr ah, naxariis badan inuu ahaa baan marqaati ka nahay. walaalkeen Ilaahay ha u naxariisto. ka dawlad ahaanna waxaan leenahay Ilaahay ubadku ka tagay iyo eheladiiba Ilaahay gadaashii ma fidnay annaga dhammaanteen. oo ka mid ahaa ganacsatada magaalada, ka mid ahaa JCC, nin muqiim ahoo magaaladan Kismaayo kula dhashay, kula koray, kula soo barbaaray, aadna looga yaqaano ayuu ahaa. ahlu khayr ah, ahlu taqwo ah, muwaadin ka shaqeeyo nabadda iyo maaragtay walaalaynta dadka reer Jubbaland kuna caanbaxay ayuu ahaa. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ummadda reer Jubbaland iyo kuwa Soomaaliyeedna uu samir iyo iimaan ka siiyo. annagoo joogna qabuuraha magaalada Kismaayo, halkaas oo aanu ku aasino marxuum Shariif Ibrahim Iimaan oo runtii ganacsada dadka reer Jubbaland qiimo badan ku lahaa, qaybta waliba ganacsatada oo nin muxsina oo ka shaqeeya samafalna ah. waxaan leenahay Ilaahay subxaan qaadir haba oofsaday. Ilaahay rabbiyow jannatul firdaws ka waraabi, dambigiisana dhaaf. waxaan rabaa inaan si gaar ugu tacsiyeeyo ehelkii iyo qaraabadii meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo, Ilaahidankiis sabir khayr qaba. intaasaan oranaynaa. isagana waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay rabbiga subxaan qaadir kitaabkiisa midigta uga dhiibo. dhammaan ehelkii iyo ummadda Jubbaland uu ka baxay, samir iyo iimaan Allah ka siiyo. waqti adagna waan ku jiraa. waxa weeye dadkuna emotionally ama qalbi ahaan aad bay waxa weeye u tiiraansan yihiin. marka ummadda Jubbaland iyo family-gii uu ka baxay dhammaantood reer Iimaan waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo. garaadadii iyo ummaddii oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka khaasatan rugta ganacsiga iyo ganacsatada waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo dhammaanteen. Maxamuud Yuusuf Xuseen, Maxamuud Sandheere, Jubbaland TV, Kismaayo.